halkani waa Koh Samua waa jasiirad aad u qurux badan oo ku taala waddanka Thailand oo ku caan ah xeebaheeda quruxda badan lehna biyo nadiif ah iyo muuqaalka kaynta oo aad u qurux badan. jasiiraddu waxay leedahay dhowr goobood oo kayma ah oo mudan in lagu dalxiiso, waxaana ka mid ah biyo dhaca Mwanga. biyo dhaceedkan yaab kale waxa ku yaala bartamaha kaynta Koh Samua, waana meel caan ah oo lagu socdo laguna dabaasho. biyo dhaceedyadan waxa ku hareeraysan dhir aad u qurux badan, waana meel aad ugu fiican in nafta lagu qaboojiyo maalinta kulaylka ah. sidoo kale waxa ku yaala kilaabka jangalka, si gaar ah wuxuu ku yaala meel sare oo ku taal bartamaha kaynta, wuxuuna bixiyaa aragtiyo cajiib ah oo jasiiradda. goobta loo dalxiis tago waxa ku hareeraysan dhir qurux badan, waana meel aad loogu nasto. sidoo kale waxa ku yaala meelaha aadka u qurux badan ee dadku u soo dalxiis tagaan beerta sirta ee Buddha. dhagxaanta qarsoon waxa ku yaala meel aad u qoto dheer oo kaynta dhexdeeda ah, waxaana uu hooy u yahay taalooyin iyo farshaxanno qurux badan oo lagu soo ururiyey. beertan waxa ku hareeraysan dhir qurux badan, waana meel aad u fiican oo lagu daawado laguna qaato quruxda dabiiciga ee Koh Samua. Highland Waterfall biyo dhacan quruxda badan leh wuxuu ku yaalaa meel cidlo ah oo kaynta, waana meel aad u qaadi karta dadka faraha badan kuna raaxaysanayaan nabad iyo xasilooni. biyo dhacyadan waxa ku hareeraysan dhir aad u qurux badan saan horeba u soo sheegnay, waana meel ku fiican dabaasha iyo nasashada. guud ahaan deegaanadan kaymaha ee Koh Samua sidoo kale waa meel sidaan hore u soo sheegnay aad loogu soo dalxiis tago, waxaanad ka heli kartaa waayo aragnimo kuu gaar ah oo qurux badan, mudanna in loo kaxeeyo kuwa doonaya inay naftooda u dhex milmaan quruxda dabiiciga ah ee jasiiradda. haddaba daawade, intaan ku kulmi doono fiideo kan xiga, waxaan kuu salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.